Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo casharkeenii afaraad ee Biology Secondary Form 1 chapterkiisii koowaad. Fadlan dhagaystay haddii aad ku cusub tahay channelkeenii kororso aqoon subscribe garay si aad ula socoto wax alla wixii cashara ay la soo geliyo channelkeena. Casharka maanta wuxuu ka bilaabanayaa qodobka afaraad ee Characteristics of living things, astaamaha noolaha. Waxaynu ka soo hadalnay ilaa 3 qodob oo ah cellular organization, inay u habaysan yihiin qaab seel ah, nutrition, inay quutaan noolayaasha, metabolism. 3daas qodob baynu ka soo hadalnay. Casharka maanta waxa weeyaan ilaa 5 qodob baynu kaga hadlaynaa. Growth, koritaanka ayaa ugu horeeyo. Koritaanku waa wax iska caan ah oo qof walba uu garan karo, sida ilmaha yararka ah ama caruurta marka ay korayaan ay noqonayaan qof weyn. Waxaas oo dhan waa koriin. Waxaa la mid ah miraha la beero markii ay korayaan oo ay noqonayaan geed ay noqonayaan, iyaduna koriinkay ka mid tahay. Haddaba haddaynu qeexno, growth is a process of irreversible increase in bulk and complexity of an organism. Koriinku waxa weeyaan waa process oo aan dib loo celin karin ee noolaha waxa weeyaan ku dhaca. Dhammaan noolayaasha oo dhan way korayaan, kuwa aan noolayna ma korayaan ayagu. Marka waxaan ku soo koobaynaa qodobka ah growth, koritaanka, inuu yahay waa hab oo aan dib loo celin karin ama waa koror noolaha uu sameeyo oo aan dib loo celin karin ayaynu dhihi karnaa. Qodobka shanaad waxa weeyaan excretion, waa qashin saar. Nooluhu qashin saar ayuu sameynayaa. Qashin saar waxaan ku qeexi karnaa it is the process of removal of metabolic waste material from the body. Waa habka looga saarayo wasakhda metaboliga. Metaboliga labadiisii qaybood ee catabolism iyo anabolism waynu soo marnay. Wasakhda ka imaanaysa howlaha kiimikaad ee jirka bani'aadamka ka dhacaya, processka looga saaro jirka ayaa waxaa lagu magacaabaa excretion. Accumulation of waste material inside the body cells is harmful or toxic. Haddii ay ku aruuraan waxyaabaha wasakhda ah bani'aadamka jirkiisa, haddii ay ku haraan, waxa weeyaan dhibaato ay u geysanayaan ama jirka waa uu ku sumoobayaa oo noolayaasha oo dhan dhib ayay ku tahay. Haddaba waxaa wanaagsan in jirka laga saaro. Marka jirka wuxuu u saarayaa dhowr qaab ayuu u saarayaa wasakhda: urine, qaab kaadi oo kale ah, sweat, dhidid oo kale ah, and carbon dioxide, iyo qaab wasakh ah oo hawo ah ayuu u saarayaa. Wasakhda jirka marka waxaa loo kala qaadaa 3daas ayaa loo kala qaadayaa. Kaadi waa markii dhiigga la sifeeyo oo kelyuhu ay sifeeyaan oo dhiigga fiican lagu daro jirka, wixii soo hara wasakh kaadida ayaa lagu soo darayaa oo kaadi heesta lagu soo shubayaa. Dhididkuna waxa weeyaan howlaha jirka bani'aadamka uu sameeyo ayay ka mid tahay, oo biyihii cusbada ahaa oo aan jirku u baahnayn ayaa la soo saarayaa isaguna. Carbon dioxide-ka isaguna waxa weeyaan howlaha respiration-ka, neefsashada, oo seelasha dhexdoodii markii ay ka dhacaan oo dhiigga oxygen-ka lagu gubo, wasakhda la soo saarayo carbon dioxide ayaa ka mid ah oo samabaday soo maraysaa, ka bacdina qofku waa uu neefsanayaa. Marka qashin saarku 3daas shay weeye uu jirku soo saarayo: kaadidii, dhididkii, iyo carbon dioxide-kii. Dhirta markaan ka hadalno, dhirtuna waxay soo saaraysaa iyaduna carbon dioxide ayay saaraysaa iyaduna, iyo biyo. Waxaa laga soo saarayaa dulduleelada caleenta ay leedahay. Qodobka 6aad waxa weeyaan waa reproduction, waa taran. Astaamaha noolaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah reproduction, taran. Reproduction waxaan ku qeexi karnaa this is the ability of all living organisms to produce young ones of their kind. Waa awoodda noolaha uu u leeyahay in uu soo saaro caruur uu soo saaro oo ku nooc ah.
مثلا xayawaan walba noociisa ayuu dhalaa marka awooddaas oo noolaha uu u leeyahay in uu tarmo uu caruur soo saaro ayaa la yidhaahdaa reproduction. tusaale dooradu waxay dhashaa ukumo ay dhashaa ka bacdi ukumaha waa la huuriyaa ka bacdi waa la soo fiiqaa ukumaha chicks bay noqonayaan jijil bay noqonayaan noocaas bay u tarmayaan marka xayawaanada. chickeska ayaa grow sameynaya way korayaan waxay noqonayaan marka digaagado ay noqonayaan ama diiq ay noqonayaan. waxaa la mid ah mango tree geedka cambaha isaguna wuxuu soo saarayaa fruits ayuu soo saarayaa miro ayuu soo saarayaa ka bacdi fruitskaas haddana waxa weeyaan way mirahoodii baa la beerayaa haddana way weynaanayaan mango trees geedo cambay noqonayaan marka taranku sidaas buu u soconayaa. shayaasha aan noolayn sida kursiga iyo miisaska waxa weeyaan ma tarmaan ayagu. qodobka 7 ee astaamaha lagu yaqaano noolaha waxaa ka mid ah respiration waa neefsasho and gaseous exchange iyo hawo kala bedelasho. labadan process waa in aad loo fahmaa. respiration waa neefsasho weeye gaseous exchange waa hawo kala bedelasho weeye. respiration wuxuu ka dhacaa sidaan hore u soo sheegnay seelasha dhexdooda ayuu ka dhacaa waa markii cuntada la burburiyo dheefshiidka uu burburiyo xididada dhiiga waxa weeyaan cuntada markii ay tagto ka bacdi cuntadii iyadoo dhiig ah ayaa waxa weeyaan la burburinayaa mar kale seelasha dhexdooda lagu burburinayaa oxygen baa lagu darayaa markaas energy laga soo saaraya iyo carbon dioxide oo wasakh ah. processkaas oo neefsashada ah ayaa la yiraahdaa respiration. gaseous exchange-guna ama gaseous exchange isagana wuxuu ka dhacayaa xubnaha neefsashada ayuu ka dhacaa isagu wuxuu ka dhacayaa sanka wuxuu ka dhacayaa sambabada wuxuu ka dhacayaa hunguri cadaha wuxuu ka dhacayaa bogga ayuu ka dhacayaa meelaha neefta ay marto ayna gasho ayna ka soo baxdo kaasaa la yiraahdaa gaseous exchange. markaynu qeexno respiration waxaan ku qeexi karnaa it is the process by which living things release energy from the organic food substances and utilize this energy to perform various activities. waa processka noolaha uu waxa weeyaan ku soo saaro energy tamar ayuu ku soo saarayaa wuxuuna energygaas uu ka helayaa from the organic food cunadii organic ahayd ee uu cunay noolaha ayaa waxa weeyaan energy laga soo saarayaa. processkaas la yiraahdaa respiration and utilize this energy-gan ayuu waxa weeyaan uu ka faa'iideysanayaa to perform various activities howlo kala duwan ayuu markaa waxa weeyaan nooluhu ku sameynayaa sida neefsashadii ayaa dhacayso iyo wixii la mid ah energy buu helayaa markaas waxa weeyaan uu qofku energy meesha uu ka helay ayuu shaqooyinkiisii maalmeedka ku qabsanayaa. gaseous exchange hadaynu ka hadalno is a process way asaguna whereby respiratory gases oxygen and carbon dioxide pass across a respiratory surface like the lungs and gills. processkan waxa la yiraahdaa waa process neefsasho asaguna ah waxa weeyaan laba hawo ayaa ka shaqeyso waa oxygen iyo carbon dioxide. oxygen ayaa waxa ay gelaysaa sagxadaha neefsashada sida sanka iyo wixii la mid ah iyo hunguri cadaha iyo waxa weeyaan sambabada iyo bogga ay gelayaan ka bacdina waxa weeyaan neeftii soo baxayso haddana waxa weeyaan carbon dioxide iyadoo ah midda gasha waa oxygen midda ka soo baxaydana waa carbon dioxide. processka marka waxa weeyaan hawooyinkan oxygen iyo carbon ay jirku ay isku bedelayaan oo oxygen ay gelayso carbon dioxide na ay ka soo baxayso oo sagxadaha neefsashada ayna marayaan sanka ilaa bogga ay marayaan ayaa la yiraahdaa gaseous exchange. movement waa dhaqdhaqaaq waa qodobka ugu dambeeya aynu maanta kaga hadlayno casharkeena. noolaha wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq ayuu sameynayaa. living things show movement noolayaasha waxa ka muuqanaya dhamaantood waa dhaqdhaqaaq ayaa ka muuqanaya. maalin walba waxaad arkaysaa xayawaano shimbiro cayayaano iyo bani aadan oo waxa weeyaan ka tagaya meel kale aadaya noocaas oo kale la yiraahdaa movement ayaa la yiraahdaa. dhaqdhaqaaqa noocaas oo kale ah oo xayawaanku meel ka tagaya meel uu aadayo waxa loo yaqaanaa locomotion ayaa la yiraahdaa. waa
xayawaanka oo dhan oo dhaqdhaqaaqa uu sameynayo meel uu ka tago meel uu aado xayawaanadu marka waxa weeyaan laba siyood ama laba siyaabood ay u dhaqdhaqaaqaan waxa weeyaan in search of foods ayagoo cunto doon ah raadsanaya inay daaqsiin raadsadaan ay daaqaan and to escape from enemies ama cadowgoodii inay ka cararaan labadaas bay xayawaanadu u dhaqdhaqaaqaan most plants are fixed into the soil dhirtu waxa weeye ma dhaqdhaqaaqdo iyadu caradaas ayay waxa weeyaan ayaa lagu hayaa mar kasto they are unable to carry out locomotion dhaqdhaqaaq ma samayn karaan but show movement laakiin waxay samaynayaan dhaqdhaqaaq yar ay samaynayaan waxaa inoo haray irritability iyo life cycle iyo comparison between plants and animals casharka xiga aynu kusoo gabagabayn doonaa chapterka inta dhiman hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh